dugsiyada al irshaad الحمد لله رب العالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان أرديدا والدين تشرفت له إن دعوانا إساء مر لبعض والسلامتهين وبرنامج كيني أونلاين كاها دوكسيدا الإرشاد إن شاء الله تعالى ما نتوحن قادم دونا مادة اللغة العربية في الصف السادس 10 كان و10 كان هوري نو سocdo taxanayno insha Allah ta'ala 10 كان من insha Allah ta'ala bilaaban doona maadada waa luqada carabiga class-kuna waa saf sadis darsigana waxa uu noqon doonaa insha Allah ta'ala darsigii shanaad Eid al-Adha 10 كان hore noo sii socdo insha Allah ta'ala halka waxa inoogu qoran taabicu dars safxaduna waxa weeyaan 95 96 يذكر المسلمون مسلمين توحي حسان في هذا العيد عيداسي وعيد عيد الأضحى وياني قصة إبراهيم وابنه إسماعيل عليهما السلام وحي حسان مركا مسلمين تا مالتا لدها عيد الأضحى قصة الإحمرة إبراهيم عليه السلام يئن كيسي إسماعيلها عليهما السلام إبراهيم الذي رأى في المنام إبراهيم الذي رأى في المنام إبراهيم كي كو أركي في المنام الرياضة كو أركي أنه إسقى يذبح قورعي ابنه إنكيسا فيقول وحوليه يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك يا بني إنكيجيو إني أرى وحان أركا في المنام وحان رياكو أركي أني أذبحك أنيق أكو قورعي فانظر إيك ماذا ترى سديد واركتا مركا وحوين ونبي الله إبراهيم عليه السلام إلهي سبحانه وتعالى امتحامي جل جلاله امتحانات دورة يا إلهي سبحانه وتعالى كو امتحامي وحانا كمدها إن إبراهيم عليه السلام لفري إن ماركت إسماعيل iyo hooyadii haajara inuu keenay markaa maka dabeetana halka uu isaga dhaqaaqo iyadoo imtixaankaasi ay jirto hadana ilaahay subxaanahu wa ta'ala wuxuu ku imtixaamay mar labaad hadana in ilaahay subxaanahu wa ta'ala uu faray uu amray inuu inankiisa Ismaaciil ha uu gowraco suurada marka waxay ku jirtaa aayadani suuratu saafat ilaahay subxaanahu wa ta'ala wuxuu leeyahay فلما بلغ معه السعي نبي إبراهيم عليه السلام سو إلهي كورمه wuxuu yiri فلما بلغ معه السعي إسماعيل مركا وقاري حلي وهانا قاضي وأبابي فإلهي سبحانه وتعالى وحويري قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك وحويري مركا إنا كيجيو وحان أركاون ريكو أركا أنيقوكو قورعيا فانظر إيك ماذا ترى محاد واركتا أما سديد واركتا فيقول إسماعيل وحا أورانيا وحا أوليهي يا أبت افعل ما تؤمر أبو يسمي وحي لغو أمري مو أوران أبو وعادي وحدي باعتا أمالي لكن وحي ليهي افعل ما تؤمر أبو سمي وحي لغو أمري إلهي سبحانه وتعالى كفري halka waxaan ka qaadanayna marka aynu ka arki karnaa inaka Ismaaciil alayhi salaam inuu ahaa marka wiil baariya oo aabihiina u hoggaansan isla markaana Ilaahay subhanahu wa ta'ala isagoo ateecaya waxa uu leeyahay aabo waxa sameeysaa wixii Ilaahay subhanahu wa ta'ala ku faray satajiduni waxaad heli doontaa in shaa Allah min as-saabiriin in shaa Allah hadu Ilaahay subhanahu wa ta'ala waxaad iga heli doontaa inaan ka mid noqdo kuwa marka sabra أطاع إسماعيل وحو أطيعي أباه آبه بو أطيعي وأوشك وحو كدواذي الأب آبه وحو كدواذي إبراهيم أن يذبح إنه قورعه ابنه إنكيسي ضاعة لله إلهي سبحانه وتعالى إسقوا أطيعي ففداه الله إلهي سبحانه وتعالى وحو كفرتي بذبح عظيم مركا النف وأنه وين بإله سبحانه وتعالى كفرتي سيد إله سبحانه وتعالى قرآن كشيء فلما أسلم وتله للجبين بإله سبحانه وتعالى مركي يسليبين
ibraahim calayhi salaam iyo inankiisa ilaahay subxaanahu wa tacaala ay isu dhiibeen oo markaa ismaaciilna calayhi salaam uu dhinaca dhulka u dhigay wanaadaynaahu an yaa ibraahim ilaahay baa subxaanahu wa tacaala u dhawaaqay ilahay wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala qad sadaqta aru'ya riyadii iyo waxyigii ilaahay subxaanahu wa tacala wuxuu leeyay ibraahiimo waad dhabaysay inna kadalika najzi almuxsiniin ina hada lahuwa albalaa'u almubiin ilaahay subxaanahu wa tacala wuxuu ku tilmaamay inay arrintaasi ahayd arrin imtixaanahoo weyn inay ahayd baa ilahay subxaanahu wa tacala ku tilmaamay ilaahay wuxuu yidhi wafadaynaahu waxaan ku furannay bidibxin cadiim wan weyn baan ku furannay baa ilahay yidhi subxaanahu wa tacaala waayahay wamaa zaala almuslimuuna muslimiintu markaa kamay zuulin oo kamay tegin muqbiliina xaale ay yihiin kuwa markaa qaabila oo macnaha ka kala yimaada min kulli makaanin meel kasta kuwa u kala yimaada inay yihiin kamay tegin ilaa haadihi alardi atayibah dhulka wanaagsan ee barakaysan waqad kaana xajuhum xajkooda wuxuu ahaa muslimiinta shaaqan berigi hore wuxuu ahaa markaa mid aad u dhib badan buu ahaa wa asbaxa alyawma maantase wuxuu noqday sahlan mid aad u fudud buu noqday falaa cajaba haddaba ardayay la yaab ma laha an tashhada haadihi alardu inaad aragtaan ama inaad aragto dhulkaasi barakaysan tilka aljumuuc alcadiima inaad ku aragto jamca aadka u faraha badan leh ee isugu yimaanaya ee meel kasta iskaga imanaya almu'minati ee ilaahay subxaanahu wa tacaala rumaysan allatii taasoo ta'tii ka imanaysa ilayhaa dhulkaa barakaysan uga imanaya min kulli bilaadi dunyaa dhammaan dalalka adduunyada oo dhan ajib can alas'ilati alaatiya waxaa laydinka doonaya markaa ardaya inaad su'aalaha ka soo shaqaysaan su-aasha koowaad maadaa yatacallamu almuslimuuna muslimiintu maxay ka baranayaan fii ciidi aladxaa ciiduladxa maxay ka baranayaan labo maadaa yadbaxu almuslimuuna muslimiintu maxay gowracaan fii ciidi aladxaa ciidda la yidhaha ciiduladxaa muslimiintu maxay gowracaan saddex maadaa ra'a annabiyu ibraahiim muxuu arkay nebi ibraahim calayhi asalaam fi lmanaami wixii riyada uu ku arkay muxuu ahaa afar ilaa ayna yadhabu alxujaaju halkeebay tagaan dadka markaa xujaajta xageebay tagaan xujayda sabaaxa ciidi aladxaa subaxnimada ciidda adxada halkeebay tagaan calaa man nasala alwaxyu yuu ku soo degay waxyiga fii makata maka dhexdeeda waxaa lagaa rabaa inaad sheegto qofkii markaa maka dhexdeeda uu waxyiga ugu soo degay su-aasha lixaad bimaada fada allaahu ismaaciil muxuu ilaahay subxaanahu wa tacaala ku furtay nebi ismaaciil calayhi salaam wixii uu ku furtay baa la doonaya markaa inaad sheegto toddobo min ayna yaqbilu lmuslimuuna muslimiintu halkay ka kala yimaadaan ama halkaybay ka soo qaabilaan ilaa haadihi alardi adayiba dhulkaa barakaysan ee wanaagsan ee maka ah halkaybay uga kala yimaadaan su-aasha markaa u dambaysay sideedaad maadaa tashhadu alardu almubaarakah dhulkaa barakaysani maxaa markaa laga arki karaa fii mawsimi alxaji xilliga markaa xajka marka la gaaro kulla caamin sanad walba waayahay horeen ugu sii soconaynaa qaybta labaad imla ilfiraaq buuxi meelaha bannaan fii kulli jumlatin jumlad kasta oo mima ya'tii bikalimatin munaasaba kelmad ku munaasiba raajican adigoo ku laabanaya ila darsi casharka nazala daash cala alnabiyi sala allahu calayh wasalam fii maka faakhada yadcuu ila allah xataa daash daash nuuru lxaqi casharkaa dib ugu noqonaysaa kadib waad ka heli doontaa insha allah inaad ka soo shaqaysa isku day labo alacyaadu daash daash alsuruuri wasacaada saddex kaana alxaju daash daash wa asbaxa al'aana sahla halkaa waxbaa ka maqan casharkii maanta aynu qaadanay weeyaan markaa ka shaqeey insha allah fii ciidi aladxaa yadbaxu almuslimuuna waxay muslimiintu gowracaan waaye shan نتعلم من قصة إسماعيل مع والده عليهما السلام دروسا قيمة في داش داش وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته dugsiyada al irshaad